يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى عباداتك يا أعماشا صالحاتك إن سمينن إلهي نغا أقبله إلهينا جل وعلا هينغو دركوا بشن بركيسان سببتed loogu dambi dhaafo oo naarta laga xoreeyo waxaan ku soo jiray oo cashirkii loogu dambeeyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka soo hadlay waxyaaba rasuulka sallallahu alayhi wa sallam loo xil saaray waxyaabahaas oo ahaa caado iyo dhaqan ahaan wax u soo jiri jiray carabta dhaxdeeda laakiin aan sharciga diinta Ilaahay waafaqsanayn kadib Ilaahay subhanahu wa ta'ala arinta iyada ah sidii loo burburin lahaa oo dhaqanka iyo caadadaas aan diinta waafaqsanayn loo tirtiri lahaa ayuu Ilaahay jalla wa ala siyaabo kala duwan inoogu soo bandhigay waxaa ka mid ah marka caadaadka iyo dhaqamada soo jireenka ee carabtu ay lahaayeen laba ka mid ah in halkan lagu faahfaahiyay oo si camali oo practical ah loo tirtiray midi wuxuu ahaa in mujtamaca qayb ka mid ah bulshada in la takoori jiray oo la yasi jiray kadibna magac inay gun yihiin loo bixiyay aan la geyin oo laga guursanin oo mujtamaca qaar ka midana loo bixiyay dad sharaf lah oo sareeya kuwa qaarkoodna gun loo bixiyay arinta iyada ah sidii loo tirtiri lahaa dadka muslimiintu waxa ay ku kala fadli badan yihiin Ilaahay agtiisa waa taqwada way miciyaarka iyo miisaanka iyo halbeega wax lagu fiirinayana waa inuu ka noqdo qofkanu intee in leeg buu Ilaahay u dhow yahay subhanahu wa ta'ala intee in leeg buu Ilaahay ka fog yahay marka dhawaanshaha Ilaahay iyo wanaaga uu leeyahay in lagu soo dhaweysto fogaanshaha Ilaahay uu ka fog yahayna ay noqotay waxa lagu fogayo kala soo dhaweysanaya dhalashiya abtirahan ka mid ka dheer ha ahaado kala fogeynayna mid ka dadka kuugu xiga ha noqdo marka miisaankaas waa miisaanka Ilaahay ugu talagalay in wax lagu qiimeeyo lagu qiyaaso miisaanka noocaas marka iyaga uma fadhiyin oo uma salaysnayn siyaabo kale ay wax u xisaabin jireen oo qofka lagu qiimeyn jiray yuu yahay iyo halkee buu ka dhashay arinta iyada marka tirtirkeedii ayaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam loo xil saaray arintaas waxaa kale iyadna daba socday in caruurta ama dadka la xoreeyo adoomaha ah in xuquuq ay lahaayeen laga xayuubiyay oo ah inaan dadkii dhalay loogu abtirin in cid kale loogu abtiriyo
arrintaas ilaahay jalla wacalaa hordhac ahaan suuradda bilowgeedii baa laga soo hadlay. wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum dalikum qowlukum biafwaahikum wallahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsatu cinda allah. kadibna arrintii practically baa loo fuliyey. qur-aanka waxaa aada ugu badan marka la doonayo mujtamac iyo society in wax laga bedelo. marka hore hordhac iyo gogol dhig baa loo sameeya, waxyaabo arar ah oo ummadda lagu fahamsiinaya waxaan soo socday iyo waxa uu yahay oo marka hore laga dhaadhicinaya ayaa ka horeeya. marka mujtamaca laga dhaadhiciyo oo dareenka iyo foobiyada iyo didmaha ay waxaana ay ka qabeen marka wax badan laga saxo macluumo ahaan ayaa practical iyo camaliyana loogu xijisiiya. saa darteed aayaadkan ka hadlaya dhaqankaa soo jireenka in meesha laga saaro, ilaahay jalla wacalaa marka hore waxaa loo soo hordhigay in arrintii dadka laga dhaadhiciyo. waliba wiilashan aad aabbayowga aada u noqoteen aad aabbaha aad ka dhiganaysaan aabbayowgood ma tihiin idinku. saxna ma aha in idinka la idinku yeedho oo aabbahoodi dhalay xuquuqdoodii in la duudsiiyo oo meesha laga saarayo sax ma ah. sidaa darteed ha dembaabina oo ha ku dembaabina cidaan aabbahood ahayn inaad ugu yeedhaan. arrintaa waxaa laga dhaadhiciyey kow in ugu yeedhista ciddaan aabba oo ahayn loogu yeedha inay diin ahaan u khaldan tahay. cidda iyada oo kusii madax tiirisana inay tahay cid dembi ugu talagashay inay dembaabto. laakiin qofkii si khalada wuxuga dhacaan inuu la mid yahay dembiyada intooda kaleo wixaan talagal kaaga dhicin oo kama kaaga dhaca inaanu kaska la mid ahayn. hordhaca marka la diyaariyey oo diin ahaan loogu qanciyo oo loo sheegay aanay arrintaasoo khalad tahay ayaa wixii ka dhalanhayay arrintaas ayaa tallaabaqaadkeedii lagu xijisiiyey. waxaa taas la yidhaahdaa tadaruj fi tashriic, yacni markii axkaamta la jeedaynayay islaamka hal mar laguma soo boodi jirin ee waxaa la soo mari jiray jaranjarooyin iyo leebalo mujtamaca garaadkoodii iyo garashadoodii iyo fahamkooda lasoo dhisayo marka hore lasoo gaadhsiinayo ilaa heeray u bislaadaan inuu barnaamijkan uu ku fulo ku dhaqan karo. marka wax badan waxaa muhima in la xeeriyo qaab hadalka qur-aanka iyo qaabka atashriic alislaami uu ku socon jiray. tiibaa marka waxaa la soo gaadhay waqtiga rasuulka sala allahu calayh wasallam isagu uu camaliyan hawshaas uu wax uga bedeli lahaa oo arrintii theory ahaan dadkii looga dhaadhiciyey in la soo gaadhay waqtigii camaliga loo bedeli lahaa. kadibna rasuulka la yidhi sala allahu alay wasalam adiga la rabo inaad hawshaa fuliso. ilaahay jalla wacalaa marka wuxuu inoo tilmaamay waxyaabo tiro badanoo marka arrintaa la xidhiidho. qisadaa marka shalay markaan soo dhammayno inoo soo dhammaatay ayaa waxay cashirkeenu maanta ka bilaabanhayaa yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira. yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa rumeeyeenow, kuwa iimaanka laga helay oo wax kastoo ay waajib ahayd inay rumeeyaan rumeeyey. dadka tilmaantaa lahow udkuru llaha ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala dikran xusitaan kahiiran oo badan in badan ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala. waxaad in badan qur-aanka arkaysaa in munaasabaad kala duwan oo la marayo la isku baraarujinhayo shayga ugu muhiimsan oo ah allahu subxaanahu wa tacaala in la xasuusnaado. cashirkana cashirkii ka horeeyey ilaahay waa kii ina soo yidhi subxaanahu wa tacaala wadaakiriina allaha kahiira wadaakiraat. idan waxaan tilmaanay shalayto marka dikriga ilaahay laga hadlaya qur-aanka waxaa inta badan la socda wax muujinaya ama caddaynaya in la rabo dikri badan qofku inuu la yimaado oo hal mar iyo laba iyo aanay ahayn.
wadaakiriina allaha kahiiran casharkii shalay buu ahaa. casharka maantana udkuru llaha dikran kahiiran wey. ilaahina jala wacalaa wadkuru llaha kahiira lacalakum tuflixuun fi suurati اljumuca. waxaa marka arrintaas ina tusaaleynaysaa xusitaanka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay mid mar walba la inooga baahan yahay, weliba inaan badinno. munaafiqiinta ilaahay ku tilmaamay walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila. mu'miniintana waxaa lagu tilmaamay dikran kahiiran. rasuulka sala allahu alay wasalam axaadiid aada u tiro badan oo aan la soo koobi karin ayuu kaga hadlay, ilaa markii dambe kutub laga alifo kutub ladkaar la yidhahdo. xataa xaaladda dagaalka marka lagu jiro oo qofka bani aadamkii maskaxdiisa iyo maankiisu seed wax isaga celisaa ay ku mashquulsan tahay, wuxuu ilaahayna xasuusinayaa dikrigiisa. yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'atan fahbutuu. haddaad cadow la kulantaan sugnaada ha cararina. waxyaabaha aada u kaashataan sugnaanshihiinana ha ka mid noqdo wadkuru llaha kahiira lacalakum tuflixuun. idinku xataa dagaalka ku jira ilaahay in badan xusa subxaanahu wa tacaala waxay ka mid noqonaysaa cawaamisha iyo asbaabta sugnaanshaha idinku kaalmeynaysa. haddaba waxaa aada iyo aada lagaba maarmaana inaynu waqtigeena in badan oo ka mida bercentageka ugu badan timekeena inaynu gelino dikriga ilaahay. mu'miniinta ilaahay markuu tilmaamayaan wuxuu yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim. hadday taagan yihiin ilaahay bay xusaan, hadday fadhiyaanna ilaahay bay xusaan, hadday jiifaan oo dhinaca dhulka ku hayaanna ilaahay bay xusaan subxaanahu wa tacaala. dikrigu marka fadliga uu leeyahay hal xadiid ayaynu ka tilmaamaynaa. rasuulka sala allahu calayh wasalam maalin baa wuxuu yihi saxaabada, war ma idiin sheegaa alaa unabi'ukum bikhayri acmaalikum. ma idiin sheegaa acmaasha saalixada eed samaysaan ad ilaahay ugu dhowaataan kuwa ugu khayrka badan mid ka mida ma idiin sheegaa. wa arfacihaa fii darajaatikum. darajaadka jannadu ilaanay darajaad iyo dabaqyo kala sarsareeya weyaan jannadu. maa bayna adarajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard. labada dabaq ee jannada inta u dhaxaysana waxay dhan tahay inta cirkiga dhulka u dhaxayso oo kale. haddaba jannada sidaa darajooyinka iyo dabaqyada kala sarsareysa u ah oo rasuulku uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam dadka qaar ka mida sida xidigta meesha fog laga arko oo kale ee looga bidhaansado, sidaasoo kale in loo arkayo la odhanayaa qofka meesha fog ka dhalaalahaya waa hebel iyo heblaayo. haddaba darajooyinkaa sarsara waxaa lagu gaadho ma idiin sheegaa oo kuwa ugu khayrka badan ee halkaa idin gaadhsiinaysa. iyo camal la isku daahiriyo oo dembi la iskaga daahiriyo oo qalbiga lagu daahiriyo oo qowlka lagu daahiriyo kan ugu fadli badan ee ugu khayrka badan. intaas keliya ma ahee idinka khayr badan inaad maal iyo hanti aada sadaqaysataan. intaa keliya ma ahee xataa inaad intaad jihaad gashaan oo cadowga aada isqabataan idinkuna aada kurka ka gortaan iyaguna kurka idinka goraan oo qaarkiin shahaado helo, xataa wax idinka sii fadli badan ma idiin sheega. qaaluu balaa yaa rasuula allah. ma adaba ka daa rasuulka ilaahay oo noo sheeg. rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam dikru llahi tacaala. waa ilaahay xusitaankiisa ood ilaahay xusto in badan ayaa heerkaa lagu gaadha. dikriga laguu sheegayo waa shay aada carabka ugu fudud oo ugu sahlan oo ilaahay uu fududeeyey qofkii ilaahay waafajiyo. waxaa laga yaabaa daqiiqado gudahood inaad shaqaysan karta xasano iyo ajar ilaahay un ogyahay subxaana wa tacaala. laakiin marar badan waan ilduufnaayo baadinimaan lahayn bay ag joogtaa.
rasuulka sala allahu alay wasalam waxa uu inagu yihi xadiid saxiixa oo bukhaari imaamu lbukhaari oo saxiixiisa kusoo khatimay waxa uu leeyahay rasuulku sala allahu alay slm kalimataani khafiifataani cala allisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim laba eray oo carabku u sahlan yahay dhihitaankooda culays aanu kala kulmayn oo sakano kugu qaadanaysa laakiin dhanka kale marka laga fiiriyo miisaanka iyo culayska ay leeyihiin xagga xasanaadka waxay buuxinayaan oy ku culus yihiin xagga xasanaadka xagga miisaanka qiyaamadana aada iyo aada bay wasan iyo culays ugu leeyihiin carabka waa u fudud yihiin laakiin miisaanka aakhare aada bay u cuslaynayaan ee xasanada xabiibataani ila araxmaan allaha raxmaanka ana waa jecel yahay subxaanahu watacaala waa maxay subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim alimaamu albukhaari raximah llahu tacaala saxiixiisa xadiidka ugu dambeeya uu kusoo gebagabeeyey saxiixu lbukhaari xadiidka ugu dambeeyo waxaa kale rasuulka sal lla ly slam uu inoo sheegay xadiidkii fii saxiixi muslim isna ku jiray wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam wasubxaana allahi walxamdu lilaahi tamla-aani aw tamla-u maa bayna alsamaa'i waalard waxaan codsan lahaa bahashaa koorta ah in xal loo helo waan codsan lahaa koorta waxaan ka wadaa mobileka ama cellphone ba idinku malaha tidhaahdaan baan u malay baalkaa xooga yar haddii la yar aamusiin karo way kuma habboona way iloobi karaa qofku laakiin xalaqaadka noocan oo kale iyo qofku markuu ama qur-aan dhagaysanhayo ama beytka ilaahay uu ku jiro waa saacadaha ugu muhiimsanee rabbigii uu la faqayo oo aakhara uu ka fakarayo marka intii suuragal ah wixii emergency ah waa goonidiisa laakiin intii suuragal ah haddii xal loo heli karo calaqal codka haddii laga xidhi karo silent laga dhigi karo si qofku danihiisii kalena ay u ogaan karo darsiga iyo casharkana xooga ayna ugu noqonin tashwiish aanay ugu noqonin wuxuu rasuulku yihi sal lla ly slm xadiidka isaga wa subxaana allahi walxamdu lilahi tamla-aani aw tamla-u maa bayna alsamaa'i waalard inaad tirahdo subxaana allah walxamdu lilah mid walbaba miisaanka aakharay ku buuxinaysaa ajarka aada ka helaysa haddii ay noqon lahayd in lagu tusi lahaana wuxuu noqon lahaa mid buuxiya inta samada iyo ardada udhaxaysa cirkiiyo dhulka inta udhaxaysay buuxinaysa bilaahi calaykum subxaana allahi walxamdu lilaahi imise sakan bay qaadataa minutis ma ah waa imise sakan yacni waa waqti aada iyo aada u yar laakiin ajar intee dhan baad helaysaa walidaalika ummaddan cimrigeedu waa gaaban yahay ummadihii hore cimri dheer baa la siin jiray oo cimrigaa dheer bay wax badan oo ay xasano iyo wanaaga ku shaqaysan jireen nebi nuux waa kii 950 sano daaciga ahaa waa intuu diinta fidinaya keliya way intaas laakiin ummaddanu averageka cimrigeedu waa 60 ilaa 70 wixii gudbana waaba iska kooban yahay cimrigii yaraa ee noocaas ah wax haaf ka badan waxaa laga yaabaa hurdu ku dhammaada marka cimrigaaga dhan waxaa laga yaabaa 3 meelood marka loo dhigo 1/3 inuu noqdaa wixiiba laga yaabo inaad cibaado samayso laakiin ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa cimrigaa yaree kooban waxaa la inugu kabay waxyaabaha haddaynu ku dadaalo aynu ajar aada u tiro badan aynu ku helayno laakiin alla siiyaa heladii ninkii sheegi jiray weeyaan qofku markaynu aada ugu dadaalo hadalka kaleba waa kuu sahlanya maxaa wardiga kugu diray maanta oo dhan baad saaraan telefoon baad qabsan hebel baad qabsan maanta oo dhan baad hadal saaraan karta 10 daqiiqood wardida maxaa kugu diray ta kale sida aduba horta wardi joogta ama leedahay shaqo joogta waad leedahay biil joogta waxa kale waa ku xisaabsan yahay biil aakhara waxaad aakhara biilato wardi joogta ama leedahay
boqol subxaan allah ma akhridaa, boqol alxamdulilah ma akhridaa, laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, boqol goor qofkii subixii dhahaa intaasoo boqol ajirna waa loo qorayaa, boqol dembina waa laga tirayaa. qof 10 addoon xoreeyana waa la ajir. intaana waxaa usii dheer maalintaasoo dhan xirsi xidh bay uga noqonaysaa shaydaanka. guriga markaa ka soo baxaysa waad u xirsi xidhaayo furayowgaad la tiigsataa, naftaada laakiin waa u xirsi xidhaa. waxyaabaha u baahan inaynu marka wax badan nolosheenna intaynu buugga adkaarta iyo aakhara sahaydeeda intaynu samaysanahay, inuu qofku uu yeesho wardi joogto ah oo marna aanu ka tegin, hadduu iloobana uu dib ka qalleeyo. faa-iidooyinka uu leeyahy wardigaa joogtada waxaa ka mid a iyo khayrka joogtada ah, hadhow haddaad xanuunsato paymentigiisu waa kuu soconaya. shaqooyinka adduunku waa 2 nooc sooma, shaqo maxaan ku dhaha permanent ah oo sick payment aada leedahay soo ma jirto, iyo shaqooyin agency iyo wax ku direen oo haddaad xanuunsato nasiibka, haddaad inta aada caafimaad qabteed xoogga leedaed ajarkeeda baad leedahay sooma. cibaadaadkuna waa noocaas. haddii ay jirto cibaado aad si joogta oo permanent aad u samaysa, hadday jirto 2 xilli ay duruufi kugu timaado, labaduba waa lagu qoraya ajarkaaga walow yaadan samayninba, markaad xanuunsato iyo markaad safarto. labaduba mashaqa iyo culays baa kaaga iman kara sooma, labaduba ajarka wuu kuu soconaya. ta adduunyada waan jecel lahaa shaqada permanentiga, hebel shaqa permanent haystaayo holiday markaanu shaqaynayna waa la paid garaya, markuu xanuunsan yahay waa la paid garaya. waa xaggii accountka adduunka wey. laakiin accountka aakhara ma isku dayday marka duruufi kula soo gudboonaato, da kula soo gudboonaato, xanuun kula soo gudboonaado, mashquul kale kugu yimaado, in ajar laguu qoro oo maxaan ku accountkaaga aakhara mar walba oo ku socotaay ajarkaasu ma ka fikirto ma diyaarsata. idan dikrigu waa shay aada u dhib yar samayntiisu, ajar aada u tiro badanna lagu helo, ilaahina jala wacalaa qofka uu darajaad sare uu ku siiyo. marka adkaartaa lagu dadaalo. adkaartaas oo ha noqoto midda subixii la akhristo oo xirsi xidhka ah, iyo midda galabkii la akhristo, ha noqoto midda salaadaha ka dambaysa, ha noqoto midda aan waqtiba ku xidhnayno sida qur-aanka kariimka oo kale, iyo salliga rasuulka sala allahu calayh waali wasalam. udkuru llaha ilaahay xusa dikran xusitaan kahiiran oo badan, in badan ilaahay xusa subxaana wa tacaala. wasabbixuuhu ilaahay nasaha oo hufa oo ceeb iyo nuqsaan iyo hooseyn oo dhan ka hufa oo u diida, bukratan aroortii iyo wa asiilan galabkii. maalinta gelinka hore iyo gelinkeeda dambena ilaahay nasaha subxaana wa tacaala. allihii waaga idiin beriye nabadda idinku soo gaadhsiiya nasaha. allaha jala wacalaa habeenkii oo naftiinu ay raaxaysato ay nasato idiin soo gelinhaya, allaha nasaha. gabalka dhacayana u daliishada in adduunyadan uu maalin gabalkeedu dhici doono oo ilaahay jala wacalaa xasuusnaado. huwa aladii yusallii calaykum wamalaa'ikatuhu liyukhrijakum min adulumaati ila annuuri wakaana bilmu'miniina raxiima. huwa ilaahay aladii waa allaha yusallii calaykum idin ammaana. marka aada dikriga la timaadaan oo isaga aada xustaan oo carabka aada ka xustaan, taagnida aada ku xustaan, fadhiga aada ku xustaan, jiifka aada ku xustaan, abaalka aada helaysaan ilaahay jala wacalaa waa idiin naxariisanayaa. waa tafsiir. ilaahay waa idin ammaanahayaa oo malaa'igta muqarabiinta ayuu idinku dhex ammaanayaayo wuxuu odhanayaa, bal fiiriya addoonkayga qiimiga badan ee sharafta leh ee hadh iyo habeen i xasuusan ee dikriga aan daynaynin, hadduu taagan yahay, hadduu fadhiyo, hadduu jiifo. maxaa ka qiimo badan ood heli lahayd in ilaahay kuu naxariisto? maxaa ka qiimo badan oo doonaysaa in malaa'igta sarsare ee ilaahay jala wacalaa muqarabiinta u dhadhow ah in dhexdooda rabbiga khaaliqa uu kugu faaniyo kugu ammaano? ma intaa wax ka qiimo badan oo qof uu heli lahaa baa jira. maanta haddii qofka la odhan lahaa caadiga ah
magacaaga waxaa lagugu ammaanay maanta meel ay isugu yimaadeen madaxweynayaasha adduunka, qofkaasu farxad inay naftu ka baxdo kow dhahba qarka u fuul, bal qaar baa dhiman lahaa dadka just because madaxweynayaasha adduunka oo hebelyahanadiibaa meeshaasaa lagaa ammaanay. iskaba dhaaf madaxweyne maxaad ka dahay, bbcda lagaa ammaanay oo lagaa sheegay oo tv-ga xalay lagaa soo daayay haddii la yidhaahdaa waxaa suuragala inuu masaajidda intuu hor istaago miyaad garanaysaan inuu dhaho kumaad ahayd ninkii xalay laga sheekeynaya bana, yani heerka inay la gaadho bani aadam inay ku sheegaan inay macan iyo qiimo kuu noqoto. xaflad walba igu sawira hebel prime ministerkan la taagna igu sawiro oo buug dhan oo wada sawiro wataa, maayarkan la taaganahay, mb-gan la taagnaa, prime ministerkan la taagnaa, meel muhiima oo madaxdii isugu timid baa la igu sawir hebel oo kaamerada si fiican igu dheji. laakiin haddii united nationka lagaa sheegay haddii la dhaana iyada waaba besba waxaa marka isweydiin u baahan bani aadam magaca loo sheego markay ku sheegaan haddaad farxad iyo inaad meel gaadhay haddaad dareemaysaa miyaysan yani qofka mu'minkii miyaynan uga fiicnayn inuu kaga farxad badnaado oo uu mar walba uu ku dadaalo in allihii khaaliqaa subxaana wa tacaala uu magacaaga ku xuso oo weliba uu ku faaniyo oo malaa'igta uu kugu faaniyo wadakarahum allahu fii man cindahu xadiidkii ah. haddaad marka doonaysa in magacaaga kor loo qaado samaawaadka dushooda iyo meel ka sarraysa ee lagugu hadalhayo ilaahiga jala wacala uu ku faaniyo oo ku xayeysiiyo oo malaa'igta lagugu faanayo, idan sharafta iyo darajada meeshii laga heli laha waa dikriga ilaahi subxaana wa tacaala. huwa ilaahay aladii waa allaha subxaana wa tacaala yusalli calaykum idin naxariisanaya haddaad dikrigiisa badisaan, idin ammaanahayo malaa'igta dhexdeeda idinku ammaanahayo haddaad dikrigiisa badisaan. wa malaa'ikatuhu malaa'igtiisuna waa idiin ducaynaysaa. asalaatu min allahi jala wacalaa waa ammaan ama naxariis, waasalaatu min almalaa'ikatina waa adducaa. malaa'igtuna waa idiin ducaynaysaa buu ilah yihi subxaana wa tacaala. malaa'igtu laba goor baa nusuusta diintu waa inoo sheegtay inay duceeyaan malaa'igtu oo dadka mu'miniinta ah oo ilaahay dikrigiisa ku dadaala inay u duceeyaan. mar si guud baa loo sheegay inay mu'miniinta u duceeyaan, marna si gaara dad dikriga ilaahi jala wacalaa haya inay u duceeyaan ayaa la inoo sheegay. ta guud fii suurati kaafir ilaahi waxa uu leeyahay jala wacalaa aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim. malaa'igta carshiga ilaahi jala wacalaa xambaarsan, ilaahi jala wacalaa xamdigiisa iyo mahaddiisa iyo tasbiixdiisa ayay mar walba hayaan. wayu'minuuna bihi rabbina waa ay rumaysan yihiin jala wacalaa. intaa kadib wayastakfiruuna liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah oo kuwa loo dhawaaqay ee yaa ayuha aladiina aamanuu la yidhi ana kuwaana ilaahay bay dembi dhaaf u weydiiyaan subxaana wa tacaala. bal hadda u fiirsa weliba say ilaahay u baryayaan, waxay odhanayaan rabbanaa wasicta kula shayin raxmatan wa cilma. ilaahayow naxariistaada iyo cilmigaagu wax walba waa ay koobeen, wax walbana waad og tahay, wax walbana naxariistaadu waa ay gaadhay. ilaahay oo naxariistaada waasica iyo cilmigaaga waasica aan kugu baryaynaaye faqfir liladiina kuwii u dembi dhaaf taabuu towbad keenay, watabacuu sabiilaka yacnii taabuu towbad keenay oo khaladkii hore iyo ilduufkii ka soo noqday. markay toobad keeneen kadibna dariiqa ku toosnaado watabacuu sabiilaka dariiqaad adigu jeexday kuwa raacay. waqihim ilaahu ka ilaali cadaab aljaxiim. rabbanaa waadkhilhum jannaati cadnin ilaahu jannadii lagu nagaanhaya laga guuraynin in laga geeriyoonin in laga gaboobaynin jannada ilaahay oo geli. allatii wacadtahum
waman salaxa min aabaa'ihim waaswaajihim wadurriyaatihim iyaga iyo inta wanaagsan ee waalidkoodii iyo caruurtoodii iyo xaasaskoodabana ilaahay u janno geli innaka anta alcasiizu alxakiim waqihim asayi'aat ilaahay dunuubta iyo asbaabta dembiga lagu galo ilaahay ka ilaali waman taqi sayi'aati yowmaidin faqad raximtah wadalika alfawzu yacni ducadaa guud oo duco ka qaalisani aanay jirin adduunyada inta uu joogana towbe iyo istiqaamo ay malaa'igtu ugu ducayn aakhare markuu tagana janno inuu galo loogu ducaynaya isaga keliya ma ahee waalidkii iyo awlaadiisa iyo xaasaskiisa inta dariiqa saxdaa qabsatayba loo ducaynayo waa shay aada u weyn weyaan wamalaa'ikatu malaa'igtuna marka waa inuu ducaysaa haddaan mu'miniin noqono dikriga ilaahayna aynu badino malaa'igtu waa inuu ducaynaysaa ducadoodana ilaah waa u aqbalayaa qofka mar baa jira axaadiidta saxiixii ay sheegtayoo malaa'igtu ay si gooniya u ducayso waa mar la inagu kari la-yahay markani waa mar la inagu kari la-yahay salaada marka la tukado wuxuu rasuulku sheegay sala allahu alay slm xadiidkii saxiixa waalmalaa'ikatu tusallii calaa axadikum maa daama fii musallaahu aladii sallaa fiih malaa'igtu qofkiin way u ducaynaysaa intii uu fadhiyo meeshii uu ku tukaday salaada assalaamu calaykum marka la yidhaahdo ninkiiba ul inala dhex kaca isma ogin moogtay ninkii shaydaana warkac 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 warkacoo qofku markaaba orod buu isa sii daynaya shuu isma ogin ninkiiba budh ku daldalhay ninkii shaydaan aha ayaa budh iyo maxaanku idhaahdaaye koronto ku qabanhayo qofku isagoo sidii leeb la ganay ayuu xuf masaajid kaga bixi kolkol baad isweydiinaysaa masaajidka markaa la soo gelayaa cidhiidhi kama jiro soomada fiirsan hal dhubuqla lagu soo gala xabad xabad hadhow assalaamu calaykum markii la yidhaahdo albaabkaa daqiiqad gudaheed meel la kala maro la heli maayo lacalla haddaad qofka ku tira war ma iska yar fadhiisatidna fiqhi xumadiisa wuxuu ku dhihi fa idaa qudiyat isalaatu fantashiruu soo lama odhan iminku war aakhiradaadii adugu maxaa mar walba oon maxaanku idhaahdaay adcaful iimaanka maxaa ku daba dhigay meesha ugu hooseyson maxaad uga qabsatay adduunye markay noqotahay safka hore inaad gashaa dooni meesha haddii irdhaati iyo hunguri iyo wax haddii la qaybin lahaa maxaad u malaynaysaan rasuulka inoo sheegay waa dabiicadda bini aadamka sal alla alay slam wuxuu yidhi haddii qofkood xoogaa waslad hilib oo habaysan iyo alaab haddii masaajidkii laga heli lahaa ragga kaale ee soo tukada lagu kari lahaa ceshaha safka hore laga buuxsami lahaa bu rasuulka sal lla alay slam waxaani adduunye markay timaado waa xaqiiqaba laakiin aakharada wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim maxay kaa dhibaysaa haddaad 5 daqiiqo fadhida meeshaa tukatay malaa'igtu maxay leedahay allaahuma kfir lahu allaahuma arxamhu allaahuma tub calayh war ducada xaggeed ka heli ilaahayow u dembi dhaaf ilaahayow u naxariiso ilaahayow ka toobad aqbal bal billaahi calaykum ducaa intaa ka fiican xaggeed ka heli taba salaadaha marka la tukada faradka qofku xoogaha iska fadhiyo adkaartii ha akhristo oo fadliga aada u badan uu ku jiray oo rasuulku inoo sheegay sal alla alay slam ducada malaa'igtana ha maxay yaanu beer daraynin qofkii dan iyo duruufle waa gooni laakiin caadadaadu yaanay noqonin assalaamu calaykum markii la dhaho bismi illaahi goortay dhahan booba kabihii nebigu assalaamu calaykum tii anigay noo xiran tahay baasho taa la iska yareeyo waxaa laga yaabaa qofku inuu ordo oo baxo aada aragto 10 daqiiqa 5 iyo 10 daqiiqo isagoo bannaanka taag marka isgaro oo ninkiiba bur kula dhacay yara diid xoogaa isyarnab isyarnab oo dhawri yarkaad inkaar alla ku a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qoliyaha kale marka uu kiciyo wuxuu burku ku dhufta waamaya ku kalo mid kale la garab galo dhinaca kale ka qabto laakiin adigu fahano iska gara ninkana dhagartiisa iyo khaainimadiisa inta khayrka aad samaysanayso inay malaa'igtu ku ducaysadaas ka xuyo ninka shaytaan waa nin imtixaan sheekhow waa nin dadka cadowga muray oo inaga fac weyn weeyaan ina yaqaana marka inta khayrka aad heli lahayd buu ku diidanin dambigu isagu ku geliyay in ilaahay lagu weydiiyo inuu ku dhaafo diidanin
ka dambe in lagaa ilaaliyo in ilaahay lagaaga baryo diidan yahay. marka iska gara sheekhow. laakiin maalin walba waan sii nagaadhnaano maalin isgaran mahayo. taas waa ninkanu fursadiisii iyo wuxuu doonaya waa u hirgashay shaytaan. huwa aladii alla waa midka yusalli calaykum idin ammaanahaya malaa'igta idinku dhex faaninhaya markaad xustaan oo idin naxariisanaya. wamalaa'ikatuhu malaa'igtiisuna waa midda idin ducaynaysa markaad ilaahay xustaan subxaanahu wa tacaala. ilaahay jala wacalaa waxaas oo khayra oo naxariisa oo ammaana iyo ducada malaa'igta maxaa la inoo siinaya? liyukhrijakum ilaahay inuu idinka saaro min adulumaati mugdiyaalka aada ku dhex jirtaan oo dulmiga macaasida. macaasidu waa mugdi, waa madow, qalbigay madoobaysaa, qiyaamahay qofka ka madoobaysaa. waa mugdi walba oo la sheegayo macsiyada ilaahay buu ku jiraa subxaana wa tacaala. sababtaa qalbiga nuurka iyo iftiinku ka daminaya. qalbiga hadduu nuurka iyo iftiinka ka damana qofku rajo male. walidaalika buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala markii laga soo sheekeeyo tilmaamo badan laga soo bixiyo qofka mu'minkaa qalbigiisa siduu iimaanka ugu nuuriya sida ay hibe ilaahay u tahay. waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur. qofkaanu ilaahay u yeelin nuur oona qalbiga nuur u gelinin kaasuu nuur ma helay. ilaahay marka jala wacalaa waxaasoo naxariistiisa wuxuu inoo siinaya waxaa weeye liyukhrijakum inuu inaga saaro ilaahay min adulumaati mugdiyadii iyo macaasida aada ku jirtaan iyo baadinimada in ilaahay idinka saaro ila nuuri nuurka iyo iftiinka ilaahay idin saaro. nuur liimaan, iimaanku waa nuur iyo laydh weeyaan. nuurkaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa uu idin saaro. nuurka daacada iyo cibaadada iyo ilaahay ku xidhnaanta in ilaahay jala wacalaa uu dhankaa idiin saaro taasuu ilaahay doonayaa. shayطaanna muxuu doonayaa iyo saaxiibadii waa opposite-ka weeyaan. allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur wاladiina kafaruu awliyaahum الطaaguutu yukhrijuunahum min annuuri ila الظulumaat kitaabu anzalnaahu ilayka لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إن بدن با إلهي قرآنك جل وعلا أي حق ورسولك كان صلى الله عليه وسلم والنور إيا الليل إيا إفتين ويان وحلقوك الأركو قفك كاغوايانا mugdi iyo gudcur dam ah oo adduunkana uu ku jiri doono walow yaanu dareemin laakiin aakhara uu ka garan doono kaasaa ku imanaya. wa kaana bilmu'miniina raxiima. wa kaana ilaahay wuxuu yahay mar walba bilmu'miniina kuwa mu'miniinta ah ee iimaankooda ka run sheega mar walba wuxuu ilaahay u yahay jala wacalaa raxiiman mid u naxariis badan wey. waa u naxariis badan yahay adduunkana waa ugu naxariisanayaa aakharana ilaahay waa ugu naxariisanayaa subxaana wa tacaala. naxariistii aakhara wax ka mid ayaa ilaahay inoo tilmaamay marka jala wacalaa. taxiyatuhum salaantooda, soo dhoweyntooda, u hambalyayntoodu yowma maalin yalqownahu ilaahay ay la kulmayaan salaamun nabadgelyaad leedihiin wey. maalinta ilaahay jala wacalaa mu'miniintu iyagoo wafdi ay u tegi doonaan. wafdiga oo la maamuusi doono oo la karaamayn doono oo la qadarin doono oo maxaan ku idhaahda inta qof la qadariyo oo la sharfo oo la qiimeeyaay aan yani adduunka ta la yaqaano aan lagu qiyaasi karin. yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafda wanasuuqu lmujrimiina ilaa jahannama wirda. dadka mu'miniinta waa la keeni doonaa muttaqiinta iyagoo wafdi ah. wafdigana waxaa la yidhaahdaa dadka loo wada meel lagu ixtiraamo oo lagu qaabilo. ilaahay jala wacalaa marka maalinta ay la kulmayaan oo ay wafdiga yihiin erayada ilaahay jala wacalaa uu ku soo dhoweynayo ee lagu salaamayo waxaa weeyaan salaamun nabadgelyaad leedihiin.
waad badbaadeen, shar oo dhan baad ka badbaadeen, khayr oo dhan baad ku guulaysateen. salaamun qawlan min rabbi raxiim. salaamun calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar. salaamun calaykum udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun. wallahu yadcuu ilaa daari الsalaam wayahdi man yashaau ilaa siraati mustaqiim. idan naxariistii ilaahay oo aakhara u naxariisanayana arrintaas ayaa lagu tilmaamay. haddii soo dhoweynta hadalka lagu soo dhoweeyo ay badbaadadii nabadgelyada ay tahay, oo qofku marka uu dad qaabilayaay erayada lagu soo dhoweynayaay macno gooni ah bay u samaynayaan. aakhare waa meel aada loo cabsanayo, waa meel murugadeeda iyo walwalkeedu uu badan yahay. marka badbaadadu waa waxa cid walba ay ku hadaaqayso oo ay jeceshahay inay maqasho, xataa ambiyada ilaah. wakii rasuulku yihi sala allahu calayh wasalam, walaa yatakalamu yowmaidin ila arusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allahuma sallim sallim. maalintaa iyadii cid hadli kartaa oo ku dhiirata oo ku dhacda inay hadashay ma jirto ila rusul, rususha ilaahay mooyaan. rususha hadalka ay keliya ay ku hadlayaan maalintaana waxa weeyaan allahuma sallim sallim, ilaahay oo nabadgeliye badbaado, ilaahay oo waxaan jira naga badbaado. haddaba dadkanu waxa ay maqlaan waxa ay ugu jecel yihiin waa maanta waad badbaadeen, oo shar iyo naar iyo below dhan baad ka badbaadeen wey. intaa marka lagu salaamo ee lagu soo dhoweeyo kadibna waxaa loo furayaa wixii loogu talagalay. wa acadda lahum, ilaahay wuxuu u diyaariyey qaabilitaanka dadka la qaabilahay iyo gogasha iyo martigelinta u fidsani waxa weeyaan ajran ajar kariiman oo wanaagsan oo jannada laga wado. sida mufasiriinta ibnu kathiir iyo keyrkiiba ay tilmaamayaan, waa jannada laga wadaa ajriga kariimka oo wanaagsanoo waxaad xidhataan wixii ugu la xidha wixii ugu wanaagsanaa, wax la goglada wixii ugu wanaagsanaa, wax la quuto oo cabitaan iyo cunto ka kooban wixii ugu wanaagsanaa, wax walba wixii ugu wanaagsanaabaa la idin diyaariyey. wa acadda lahum, ilaahay wuxuu u diyaariyey ajran ajir iyo abaalmarin kariiman oo wanaagsan buu ilaahay u diyaariyey subxaanahu watacaala. wataas marka naxariistii aakhare ilaahay dadka mu'miniinta uu naxariisanhayay, adduunyada inta ay joogeenna sharaf bay lahaayeenoo malaa'igta loogu faani jiray dikriga ilaahay alla ku xidhnaanta darteed. aakhare markay tageenna natiijadii iyo karaameyntii iyo qadarintii iyo maamuusidii intan weeyaan soo lasoo koobay, faahfaahinteedana aayaadka kale qur-aanka lagu faahfaahiyey. yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira. waxaan in badan arkaynaa suuraddan waxyaabaha ay la gaar ka tahay. in badan rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaad arkaysaa munaasabaad kala duwan oo muhiimaadkii loo soo diray marka laga hadlayo. mar walba nebinimada oo maqaam sharafeeda ayaa ilaahay ugu yeedhaa oo lasoo xigtaa. suuradda waxay ku bilaabatay yaa ayuha nabiyu ittaqi llaaha walaa tutic ilkaafiriina. waxaa kaloo soo marnay markii arrintii qoyska iyo guryaha rasuulka marka laga hadlayay, yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika, inuu ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala. waxaa inoo xigta yeedhitaankan kaloo ilaahay jala wacala ugu yeedhayo yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiira. waxaan horay usoo tilmaanay in marka dadka mu'miniinta laga doonay waa edbin weeyaan. waxaynu dariiqaynu mari lahayn iyo qaabkaynu rasuulka ula hadli lahayn sal alla alay slam baa laynoo jeexaya. saa darteed in rasuulka sala allah alay slam sida inagoo caadiga aynu isugu yeedhna magacyadeenoo qalalan lama ogola rasuulka sala allahu calayh wasalam in loogu yeedho. weliba qofka title yeesha inaga ma ogtahay ma ogola in laga reebo titlekaas. wadaad sheekha haddaad magaciisoo qalalan ugu yeedho inuu ku habaaraa suuragal, inkaar alle kugu rid, xageeba calalada iga diiri. nin baan xasuustaa beri arrin buu nooga sheekeeyayo nin dadku ay sheekh hebel u yaqaanaan yaan ku idhi war hebelow kas baan ugu leeb talagal hebelow kaasuu isdhaga tiray sii socday muddo
magaciisii hooyadii ula baxday aabihii ula baxay loogu walqalay buu diidan yahay moogta hebelow isasee dhagatiraayo markaan xoogaa ku weeyay wuxuu yidhi sheekh markaasaan yidhi war may hebelow kaasuu yidhi kir alla ku nacbi callada xagee iga diiraya yani qofka kale dadka hadda loogu magac daro professionalska yani ma ogola qofku magaciisa hebel haddii la present garaynayo hadhowto la rabo dad in loo introduce gareeyo hebel keliya ma ogola waa inaa intaas waxaa sheegto oo taytalo badan saasuu yahay yahana fara badan waa inaad taxdo ka waran rasuulka sala allahu calay wasalam markay timaado yahanada adduunka oo dhan isku soo dar agtiisa waxba yahay wey sheekh ya shariif oo dhan isu keen waxba kama nebi maxamed calayhi salaam marka laga hadlayo bani aadamka kale oo dhan waa inay meesha ka baxaan marka waxaa layna edbinayaa ilaahayna qur-aanka waa ku sheegay laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacda saa idinku isugu dhawaaqdaan oo kale ha ugu yeedhin rasuulka sal hadal xurmo qadarin ixtiraam yani tilmaamihii ilaahay ugu yeedhay aada ugu yeedhaysaan baa laydinka raba yaa ayuha الnabiy nebigan sharafta iyo qiimaha badanow inaa arsalnaak waanu ku dirnay shaahidan adoo markhaati iyo goobjoog ah adoo markhaati ah ayaanu ku dirnay laba qoloba markhaati buu rasuulku ku noqonaya sala allahu alay wasalam ummaddan markhaati buu ku yahay ummadaha kalena markhaati buu ku noqonaya ummaddiisuna rasuulka sal ly slm iyadana waa markhaati aayaadka qur-aankeena arrinta waa ku badiyihin fakayfa idaa ji'naa min kuli ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haؤulaa'i shahiida bal ka waran yani rasuulku waa shahiid calayhi الsalaatu wasalaam ummaddan markhaati buu ku yahay wuxuu markhaati ka yahay inuu kow xaqii soo gaadhsiiyo diinta ilaahay usoo dhiibay subxaanahu wa tacaala risaaladii loo soo dhiibay iyo dhambaalkii iyo fariintii xagga ilaahay looga soo dhiibay wa mubashiran mid bishaaraynhaya ayaa tahay oo dadka ugu yeedhahaya waxa ay jecel yihiin oo jannada iyo dembi dhaafka iyo wax aakhara ahaan uga farxinaya ayaa dadka ugu bishaaraynaysa wanadiiran mid digayana waa tahayoo cidda ku khilaafta ee ku raaci weyda oo manhajka iyo dariiqaad la timid ka dhigan weyda dariiqii ilaahay lagu raaligelin lahaa ka dhigan weydayna waad u digaysaa oo naar baad uga digaysaa marka waa mubashiran mid bishaaraynaya oo ciddii ku raacdaad u bishaaraynaysa wanadiiran mid digayaa tahay oo ciddii ku khilaafta ayaad naar uga digaysaa wadaaciyan ila allahi mid ilaahay dadka ugu yeedhahayaa tahay dadka makhluuqa waad u yeedhaysaayo xagga khaaliqaad ku soo xidhaysaa subxaana wa tacaala biidnihi ay biamrihi amarku ilaahay ku amray ee ku faray inaad xaqa iyo dadka gaadhsiiso ayaa dadka ugu yeedhaysaad ilaahay ku xidhaysaa subxaana wa tacaala makhluuqa waxaad fahamsiinaysaa oad ka dhaadhicinaysaa ciddii abuurtay inay xaqeeda ay ka soo baxaan oo ay ku xidhnaadaan wasiraajan faynuus iyo wasiraajan faynuus baa tahay oo muniiran ifaya waxaa tahay nuur ifayo dadka wixii qalbigooda nuurin lahaa wixii qiyaamahooda nuurin lahaa ayaad wada tahay oo dadka ugu yeedhaysaa oo nuurkii ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu dhiibay baad dadka ugu yeedhaysaa cidda aan maxaanku idhaahdaa nuurkaa raacin oo aan iftiinkaa raacinna waa cid mugdigii iyo dulumaadkii ku hadhay wey tilmaamahan rasuulka laga bixinaya sala allahu calayhi wasalam oo ah muhiimaddii iyo shaqada loo soo diray in la tilmaamo wax badan bay xambaarsan yihiin qof kastoo daaci ah oo diinta ilaahay dadka ugu yeedhayana
waxa uu ay tahay inuu ka dhuxul qaato oo ka shidaal qaato waa qaab dacwadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam methodsku isticmaali jiray, qaababku dadku wuxuugu soo bandhigi jiray, siyaabaha kala duwan oo uu dadka diinta u gaadhsiin jiray calayhi salaatu wasalaam. wabashir ilmu'miniina, mu'miniintana u bishaaree bianna lahum inuu u ahaaday min allaahi alla weyne xaggii fadlan fadli iyo ziyaade iyo ajar kabiiran oo aada u weyn. inta ku rumaysa ee ku raacdana u bishaareeya, waxaad ugu bishaaraysaa ilaahay agtiisa inay fadli iyo thawaab iyo ajar iyo wax weyn oo la siiya inay ilaahay agtiisa ku leeyihiin subxaanahu wa tacaala oo jannada ah weya. walaa tutic ilkaafiriina wاlmunaafiqiina wadac adaahum watawakal cala allahi wakafaa billaahi wakiila. waxay suuraddu mar labaad dib ugu noqotay in rasuulka iyo mu'miniinta la xasuusiyo wixii lagu soo bilaabay. suuradda waxaa lagu soo bilaabay in rasuulka la leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay ka baqoo ku xidhnow, wixii ilaahay ka soo hadhay oo gaali iyo gaalala galeelana warkooda dheg jalaq ha u siinin, taladooda iyo naseexadoodana ha qaadanin oo daacadnimo ha u qaadanin. haddii aad ka baqdo ama qofku uu isweydiin lahaa, haddaad kuwan iska moosto ood iska ilaalisaay ama aad cid u baahata, hadduu qofku is odhan lahaana ilaahay tala saara, ilaahay baa kugu filan oon cid kale kuu baahinaynin. xaqaa'iqdii noocaas ahayd ee suuraddu bilowgeeda lagu soo sheegay ayaa mar dambe mar labaad ilaahay jala wacala inagu soo celiyay. ilaahay wuxuu yihi walaa tutic ilkaafiriina, gaalo warkooda ha dhegaysanin, ha ateecin, waalmunaafiqiina, oday jirjiroolaha inkaartii ku dhacday ee laba dublaha ah ee inkaarta qabana warkiisa ha dhegaysanin. gaal iyo munaafiq ma kala hadhaan sheekh, adduunkana kala hadhi mahayaan, aakharana munaafiqaaba kasii xunba. ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaari walan tajida lahum nasiira. lanna munaafiqu dararka iyo dhibka uu dadka muslimiinta ku hayo ayaa ka daran inta uu gaalka caadigii ku hayo. waxa labada safba uu maxaanku idhaha ka adimhayo waa isaga, kana waa joogaa, ka kalena waa jooga. waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamana, dadku iskala mid dhigi. waidaa khalow ilaa shayaaiinihim, xagga markii la tagana qaaluu inaa macakum, maxaad moodeysaan? war kuwaa waan beenguur baan kuwaa waan u beenguurayay, ina mustahziun, qolada waan u beenguurayay ma inaan ka tirsan adi moodi soo kana war alam xatuugsha fii qaadib. maxaa munaafiq inkaari ku dhacday ummadda muslimkaa dembi ka galay. marka dhibkooda oo badan darteed ayaa in badanna qur-aanka looga sheekeeya. cadaabka aakhara markay tagtana meesha ugu hooseysa xataa gaalada iyagu way ka cadaab kulli way ka hooseynayaan. munaafiq abaalkiisu marka waa kaasa, dhibkiisaa badan soo maaha, naartiisa iyo cadaabkiisuna waa badanaya. marka walaa tutic ilkaafiriina, imisaa munaafiq inkaari ku dhacday uu iska dhigay naasix mu'mina. qur-aanka ugu cajaa'ib badan waxa nimankaa ka shifa suuratu tawba, ilaahay jala wacala markuu ka sheekeynay, iyo suuratu lbaqara waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun. kitaabu baallaha goy, ma anagu ha weliga ayaa wanaag iyo khayr uman ka talina. markau dhaqaaqana waidaa tawallaa sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wاnasl, wuxuu reebi lama arko. wadac adaahum, dhibkooda, dacaayadooda, aflagaadadooda, in xunsheegooda iska daa, waxba ha ka soo qaadin. watawakal cala allah, ilaahayna tala saaro. wuxuu ilaahay in badan inoo sheegay jala wacala dadka diinta kasoo horjeeday inaanay marna daynaynin hadalla xunxun oo dadka muslimiintii ay ku maqashiinayaan. latublawunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kaiira. waxaad in badan maqli doontaan gaalo iyadoon la kala reebin inaad in badan dhib aad ka maqashaan iyo dhagxumo.
maray diinta caayaan, maray ilaahay caayaan, maray rasuulka sal alla alay slam ay caayaan, maray muslimiinta caayaan. dhib aan kala go' lahayn oo isdaba joog ah ayaad in badan ka maqli doontaan buu ilaah. wala tasmacunna wala wallaahi, yani waa laamtaas muwada'atu lilqasam, waxay hordhac u tahay dhaar. ilaahay baa dhaaranaya, wuxuu leey jala wacala, ilaah baan ku dhaartaye inaad in badan maqlaysaan dhagxumo iyo hadal laydinku dhaliilahayo oo diintiina iyo idinka laydinku dhaawacayo inaad dadkaa ka maqlaysaan. marka newspaperada la isku caay, tviyada la iska caay, meel walba oo dhan ba aflagaadiya afxumo lala soo taagan. marar badanna waxaa la isku dayaa in barnaamij set up diyaarsanaa oo dadka muslimiinta lagu dhibaataynayo oo la qorsheeyey intii laga shaqeeyo, in hadhow toole maxaan ku idhaahdaa laba qayboodba ay meesha ka soo baxaan. kuwa magac islaam wato oo munaafiqiin ahoo setupka qeybka ah oo shayaadiin ah, iyo kuwa dhegweyn ahoo warmoogayaal ahoo iska dhex batalaqsada bahasha oo hadhow toole dhib kale haddana muslimiinta u keeno. saa darteed bu ilahi lehi subxaanaه wa tacaala, wain tasbiruu watattaquu faina dalika min casmi اlumuur. arrimaha noocaas oo kale ah duruufta markaa lagu jira in lagu qiimeeyo oo laga maarmaan. orod iyo didmo marar badan wax tari mahayaan, laakiin in la fiirsado, laga baaraan dego sida ugu habboon hawshaas iyadii wax looga qaban karo. watawakal cala allah, ilaahay tala saaro. ciddow ilaahay jala wacalaa tala saaratana ilaahay baa ku filan. afkooda waxba kugu yeeli mahayaan. afkooda cidda ilaahay rifci iyo darajo u qoray, aadamo afkii waxba ka qaadi maayo. kuba halkan ku qoray iyo kuba halkan yidhi iyo waxaan waa wax horay loo yidhi. maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qabli. waxba lama aanay hadhin, taariikhdu inta ay qoraysaa. marka intii unbay soo celcelinayaan. watawakal cala allah wakafaa billaahi wakiilan. wakafaa billaahi, ilaahay baana ku filan wakiilan. wakiilnimo iyo cid hawl loo dhiibto oo lagu xifdisto oo ilaalisa oo sidii la filayay ee si ka wanaagsanba u ilaalisaayo, ilaahay baa qofka ugu filan. qofku marka ilaahay subxaana wa tacala inuu kalsoonida ilahay inuu ku kalsoonaado, ilaahay jala wacala inuu ku tiirsanaado, inuu ilaahay cuskada subxaanahu wa tacaala ayaa loo baahnay. xaalad walba oo kuloo soo gudboonaa tahay, khaasatan haddaad dacwo iyo diin fidinaysaay, cadowgaagu waa badan yahay. muuqaal diimeed hadduu kaa muuqdo, muuqaalka laftiisaa dacwo ah, cadowgaagu waa badan yahay. hadduu cadowgaagu badan yahay oo in muuqato iyo in qarsoon, in kula luqad iyo in kaa dheerba ay leeyihiin, maxaa lagaaga baahan yahay? xidhiirhkaad ilaahay la leedahay jala wacala inaad wanaajiso, adkaarta iyo ilaahay xasuusnidiisa inaad badiso, ilaahayna inaad ku tiirsanaato oo tala saarato. qofka ilaahay tala saartana, waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuh. waa shicaarka iyo halku-dhagga ambiyada weeyaan. waa asaaska iyo towxiidka iyo lafdhabarta diinta iyo rususha weeyaan. ilaahayna jala wacala in badan buu qur-aanka ku tilmaamay. nabiyullaahi muusa qoladiisii markay cabsi badan ay muujiyeen, inuu fircawn iyo ciidamadiisii cabsi badan markay ka muujiyeen, wuxuu yihi nabiyullaahi muusa, waqaala muusa yaa qowmi in kuntum aamantum billaahi facalayhi tawakaluu in kuntum muslimiin. war ilaahay baa adduunyadan leh, isagaa maamula. cabsidan faraha badan iyo keyrkeyrkan iyo wadna fogtan iska joojiya. ilaahay jala wacalaa ku kalsoonaada, isaga u dhiibta taladiina iyo arrinkiina haddaad muslimiin dhaba tihiin weyaan. qaalat rusuluhum in naxnu ilaa basharu milakum walaakina allaha yamunu calaa man yashaau min cibaad wamaa kaana lana an naatiyakum bisulطaani ila biidn illah wacalى allahi falyatawakal ilmu'minuun wamaa lana anlaa natawakala calى allahi waqad hadaana subulana walanasbirana calى ma aadaytumuuna wacalى allahi falyatawakal ilmutawakiluun. wakaa halku dhegi rususha. rususha markaa loo hanjabo, cagaha dhulka loogu dhufto, xidhitaan iyo xabsi iyo masaafurin iyo waxyaabo fara badan loogu hanjabo,
ama la yidhaahda laba mid soo gala ama diintiina ka noqdo ama dhib baan idiin geysanayna, waxa ay ku jawaabi jireen waa maxay? annagu ilaahay baanu ku kalsoonahay, ilaahay baanu isu dhiibnay subxaana wa tacaala, wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad. kadibna natiijadu maxay noqotaa? fawaqaahu allahu sayi'aati maa makaruu waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu. nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam iyo nebiy llaahi ibraahim calayhim الsalaatu wasalaam, sida ibni cabaas uu warinayo fi saxiixi ku jirta, ereyga xasbi allahu wa nicma alwakiil macnaheedu ay tahay ilaahay baan ku kalsooni qabaa, isagaan taladayda u dhiibtay. ereyga noocaasa oo caqiidada ka turjumaya qaalaha ibraahimu xiina ulqiya fi nnaar. nebi ibraahim baa yidhi xasbi allahu wa nicma alwakiil markii dabka lagu tooray. kalsoonidiisa markuu ilaahay u dhiibtayna natiijadii maxay noqotay? fawaqaahu llahu sayi'aati maa makaruu qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahim waaraaduu bihi kaydan, dhagar iyo dil bay la damceen, fajacalnaahum lakhsariin, kuwa tacabeelay ee khasaaray oo waxay intaa kusoo dhabarjabeen ay waxba teeri weyday ayay noqdeen gaaladii. nabigana sala allahu calayhi wasalam markii uu mowqif xarija markuu istaagay oo la yidhi adduunka oo dhan baa isoo kaa baahaysanaya, isugu kaa tegayo, dagaalkii uxud markuu dhacay oo jabkuu muslimiinta soo gaadhay oo dhaawacii iyo dhiiggiiba uu ku yaalay, waa kii abu sufyaan markuu dhaqaaqay waa kii fariinta soo faray. waxaa la yidhaahdaa nucaym binu mascuud buu ahaayo aada garanaysaan, oo dagaalkii ka dambeeyey abu sufyaan iyo ciidamadiisa afka dhulka u geliyey. fariin buu soo fara, wuxuu yidhi waxay ku tidhaahdaa waabaan soo socnaada kulligaayo waanu isa soo urursanay, waan idinku soo noqonaynaa, inta soo hadhe baan baabi'inayna. hadalkaa marka uu soo gaadhay, ilaahay baa inoo sheegay inay hadalkan ku hadleen, aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum. warra lisukiin urursaday oo united nationkii oo dhan baa idinku soo duulahaya, fakhshawhum warhoy jooga oo hadis fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allahu wa nicma alwakiil. ereygaan u socday waa kaas. markay arrintaa yidhaahdeenna maxaa ka dhashay? faاnqalabuu binicmati min allahi wafadlin lam yamsashum suu-un waاtabacuu ridwaan allah. abu sufyaan markay erayada ay saxaabadu iyo rasuulku ku hadleen, cabsi un baa ilaahay qoorta u geliyay, cabsi un baa tusbax looga dhigay qoorta ugu jira, cararkuu cararay, waa kii caga dhulka dhigi waay, is yidhi amay nimanku guushu baasha lama hadhiya amay kaasoo daba tagaan ay kaa dhigtaan baasha, waa kii dhaqaajintuu dhaqaajiyey meeluu caga dhigay la waay. idan qofku ilaahay jala wacala hadduu isku xidho oo rabbigii uu kalsooni uu ku qabaay, ilaahay jala wacala uma baahiyo makhluuqa, ilaahay baa ka kaafay oo kaga filaada. taa macnaheedu maa qofku inuunasan asbaabti la imanino, isaga laftiisa dadaalka faran aanu la imanin. waa lagaa doonayaa inaad dadaalka la timaado. ilaana waxaad haysaysaanba waa nin sidaadoo kale 9 bilood ku dhashay, wixii dadaal adiga waa lagaaga baahanya, laakiin dadaalkaaga waxaad ku xoojiysaa waa dadaal bani aadame in ilaahay jala wacala kalsoonidaad ilaahay ku qabtaay ha ka badnaato inta aad ku qabtaay adiga dadaalkaaga iyo waxaad farfarsamayso. wakafaa billaahi wakiila, ilaahay baana ugu filan qofka wakiil. cashirka galabta insha allahu tacala halkaasaynu ku joojinaynaa. berita waxay u badan tahay insha allahu tacaala inuusan cashirku jiri doonin, marka waqtigii kale xiga haddii ayba suuro gasho waqtigii uu soo hadhay insha allahu tacaala makarafoonka iyo culimadu sheekh abubakar iyo idinka sheegi doonaan insha allahu tacaala. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.